wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga jamhuuriyadda Soomaaliland Xuseen Aadan Cige ayaa maamulka gobolka Gabiley ayaa kulan ballaaran la yeeshay uqaasha waxgaradka iyo ganacsatada gobolka Gabiley iyadoo laga arinsanayay sidii loo horumari lahaa arrimaha ganacsiga iyo maalgashiga la xiriira. kulankan ujeedadiisa ugu horeynba waxaa hadallo kooban ka jeediyay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Xuseen Aadan Cige oo ka warramay ujeedada kulankani maanta uu la yeeshay ganacsatada gobolka Gabiley. waxaan idinka mahadnaqayaa waqtigiina qaaliga ah sidaad iigu hurteen halkan u timaadeen maanta. ujeedada socdaalkaygu way gaaran tahay laba arrimood. arrin wasiirka ganacsiga iyo maalgashigu waa wasiir gobolkan kasoo jeeda, maadaama gobolkan kasoo jeeda waxaan jecelahay bal fursadaha ganacsiga ee dalka ka jira iyo maalgashiga inaynu iska wareysano, inaynu ka wada hadallo horumarinta gobolkan Gabiley, mas-uuliyadda iyo xilka iyo roolka ka saaran ganacsatada inuu iyadana aanu iftiimino. waxaa kaloo iyadana lagama maarmaan ah inaan warbixin guudka ka siiyo heshiiska ay dhowaan xukuumaddu la gashay, heshiiska hordhaca ah ee shirkadda maraakiibta iyo dekedaha ee la yidhaha DP World oo shirkad laga leeyahay dalka Imaaraadka. haddii ay hawshaasi furanto saameyn intee leeg bay nagu yeelanaysaa dhaqan dhaqaale gobolkan Gabiley, sababtoo ah fuudku kasoo markuu berbera kasoo baxo markayse 9 kilomitir oo bypass soo maraya Abaarso ayuu kaga soo duldhacayaa ilaa Wajaale. fuudka ugu muhiimsantaa weyn horta ummad walba inay horumarka isku baraarujiso oo ay horumarka ajendaha koowaad ka dhigato waa lagama maarmaan. markii uu horumar yimaado ayaa himilada ummaduna ay rumoobi karto. u diyaar garoono in magaalada la hormariyo. dabcan xilka iga saaran Gabiley unbaa laascaanoodna iga saaran, qurcana iga saaran, booramana iga saaran, laakiinse jaanisyada ay halkan haysato meelaha kale ma haystaan. sidoo kale halkaasi waxaa la soo dhaweeyay wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga Xuseen Aadan Cige, maamulka gobolka Gabiley oo horkacaya duqa degmada Gabiley Aamin Cumar Cabdi iyo barsaabka gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdilaahi oo ka warramay ujeedada wasiirka iyo kulankan uu maanta la yeeshay ganacsatada gobolka Gabiley. fursadda halkan taal haddaad adigu ka aamusto walaalkaaba qaadanayo laga hor istaagay intaasuma muhiima. waxa ugu badan ee reer Soomaaliya haddii aynu carabka ku balaana ilaa maalinta kala soo gala waa ictiraafka haddaba qof si uu yaqaanamo dadka qaar waxay haystaan dawlad iska horeysa Soomaaliland baa ictiraaf war ictiraafku waa sida waxa weeyaan sayloonkaas dadka ugu socdaayo waa DP World halala galo wada horumarina hala sameeyo. shirkad kale oo ajaanib ah mid bay keenaysaa, shirkad bay keenaysaa. waxa ogaan doontaan oo arki doontaan maalin dhow baasaboorka Soomaaliland iyo Imaaraadka inaan ku gelin oo Imaaraadka lagu gelin. waxa kale sabab ma ayaana shirkadii ugu weyn waddanka markay loo yimaadaan ee ganacsiga u baahan yahay faasid ka wax weeyaan wixii wanaagsan inuu taageero wala inaga habo. geesta kalena ganacsatada gobolka Gabiley ayaa kulankani aad u soo dhaweysay iyagoo wasiirkana ku amaanay dadaalka uu ugu jiro ganacsatada Soomaaliland. kulankan isku keenay oo inoogu warramay xog wararka buuxay naga siiyay warta wasiir waan ka aqoon waxa u baahan tahay kaliya wasiirka wixii khibrad ay uga baahan lahay business fund kaas khuseeya iyo ganacsiga khuseeya wixii khibrad aan kaaga baahno wasiirin laga helo waana u taageersanahay xukuumaddu wax kasta oo ay ku meel marinayso boodka iyo wixii kale horumar waddankan u baahan yahay waanu ku taageerinaa, waanu la garab taaganahay, hiliyay waanu la taaganahay. maanta fursadee gobolkeena ka bannaan nin iyo laba toona uma qaban karnaa. inagoo iskaashanay ayaan wax u qabsan karnaa inaynu inagu dib isugu noqono, si gaarana isku helno, ka shirno, waxna wada yeelano, is aaminana. taasi waa ganacsata ahaan. intaan ka shaqeynay gobolka Gabiley waa wasiirkii ugu horreeyay ee ganacsado taariikhda tan garanay. tan ka dhowr sanadood ka maqnaa ma garan karo, laakiinse ee la shiray ganacsayaasha gobolka Gabiley horta taariikhdaas maanta kuu qoran oo aan kuu qornay aadna waad ugu mahadsan tahay. Nimcaan Dheeg Ibrahim, TV-ga qaranka Gabiley.